madaxtooyada dowladda deegaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga waxaa ka socoto qabanqaabada baroordiiq loo samaynayo ciidankii iyo mas'uuliyiintii sida gaadmada loogu laayay deegaanka Dawacaaley oo ka tirsanay degmada Xarshin gobolka Faafan ee dowladda deegaanka Soomaalida maleeshiyaadkii argagixisadaha ciidankii ay sida arxan darrada leh intay u soo gaadeen ay ugu laayeen baroordiiqdooda qabanqaabadeeda ayaa ka socoto madaxtooyada buurta ee magaalada Jigjiga waa madaxtooyada dowladda deegaanka Soomaalida xukuumaddu horay bay u ballan qaaday in ciidankaasi baroordiiq loo samayn doono qabanqaabadeeda socoto dhinaca Somalilandna si weyn bay arintaasi uga caroodeen 24 saac ee ugu dambeeyayna hadal haynteeda ayaa baraha bulshada ay ka taagnay waan dul istaagi doonaa balse inteena dul istaagin baroordiiqdaas inay sax tahay inay sax ahayn iyo qaabka ciidankaasi iyo mas'uuliyiinta loo laayay iyo tiradooda inta lagu qiyaasay iyo ujeedada xukuumaddu ay ka leedahay iyo xilliga waliba ay ku soo aadaysay kooxaha argagixisada inteena dul istaagin waxaan ku horeynaynaa Ethiopia dhul gariir baa ka dilaacay meelo badan oo kamid ah waliba kilalo kamid ah sida Canfarta deegaanka waxa weeye iyadana Axmaarada Oromada Bishaangul Gumus intaba dhul gariirka waxa kaaga daran waa hadda aad u jeedaan ee muuqaalka socodada u jeedaan dhul gariirka waxa kaaga daranba buurihiina way dhaqaaqeen Ethiopia wal horaba dhulkeedu buuro u bay ahaa dowladda deegaanka Soomaalida dhulkan Soomaalida waxa la dhahaa waa dhul siman oo beeraley ah oo wax soo saar laakiin iyagu Ethiopiyadu waa buuro dhulkoodu buurta dhaladeeda ayaa jaadku ka baxa bariisku ka baxa qamadigu ka baxa qudaartu ka baxda xashiishtu ka baxda wax walba ay ka beertaan nin walba wuxuu beeranayo marka buurihii ay marka horeba ku dhibanaayeen ayaa dhaqaaqay horeyna waxaan idin kula wadaagnay magaalooyin dhan inay xabaalmeen magaalooyin dhan oo deganaa ayaa xabaalmay oo dhulka ku darsamay hadda buurihii way dhaqaaqeen oo meelay u socdaan Ilaahay baa garanaya oo nooga cilmi leh dhulkiina intuu hal marka ka dhoo waxun biyo ay istaagaan baa waxa ka soo boodaya waxa qarmoon oo hadana dhimbil dab ah oo qulqulaysa waa volcanic way marka daad gurayntaas ka socota gudaha dalka Ethiopia in ka badan 300 oo kilomitir dadkii deganaaba la daad guraynaya oo hadii 300 oo kilomitir oo Ethiopia deegaanka Soomaalida oo kala ma aha deegaanka Soomaalida waxa laga yaabaa 300 ba inaysan ku nooleyn ba 200 kun oo qof ama 100 kun oo qof ba inaysan ku nooleyn laakiin iyagu dadkoodu waa issaarsan 300 ee kilomitir meeqa milyan baa laga daad guray xagee qaali oo la geeyni xagee banaan oo Ethiopia loo geeyay dadka la geynaya waan dul istaagi doonaa mashaqada Ethiopia haysata ee waliba xilli adag oo Abiy Ahmed uu safar ku maqayo deegaanka Soomaalida xoogaa dana ka soo gashay ku soo aadaysa ayaa muuqaalkan si fiican ugu qaada dhigi doonaa soo dhawaada muuqaalka la isaara aragtideena noogu reeba qaybta commentiga aynu ku bilownay madaxtooyada deegaanka Soomaalida magaalada Jigjiga waxa ka socoto qabanqaabada baroordiiq loo samaynayo mujaahidiintii ku dhintay ee sida arxan darrada gaadmada ah kooxihii argagixisada ay ugu laayeen magaalada Dawacaaley tuulada Dawacaaley oo ka tirsan degmada Xarshin gobolka Faafan ee dowladda deegaanka Soomaalida ciidanka la laayay dagaal kuma aysan dhiban iyagoo dagaal ku jira kuma aysan dhiban waxay u tageen shaqaaqo halkaasi qabiilada wada degan beeraha wada degana bay halka u tageen intii nabadeynta ay ku jireen ma aysan filaynin waa la inalayn doonaa iyo argagixisa meeshan ku jirta oo kooxaha hubaysan ba halka lagu abaabulay ma aysan islahaynba ciidankii oo iska degan oo xaalkoodu degan yahay waayii dambana seminaara loo furay oo ciidanku si waagi hore cabdiileeyay haday meeshu nabad tahay haday nabad ahayn ba indhahoodu u taagnaaye teeshinkoodu u taagnaa ma ahayn oo 7 sano ugu dambeysay hubka dhigis baa horta ciidanka new booliska lagu sameeyay ina cagjar yahaayada intuu u yeeray xuquuqul insaan wuxuu yiri bal ciidanku waxay ugu sheegsheega oo maadaama ay xarbi ka soo bixeen waxay ugu sheegsheega oo xoogaa bal waxa weeye haystajiyaan hubka dhigis baa lagu sameeyay si kala kuma garato qoriga hoos u dhiga baa dadka caadi oo la tacaabalo dad caadi u nool askariska caadi oo la nool dadkooda noqda leeydi ciidanku marka ma aysan feejignaynba waa la ina layn doonaa iyo kooxa argagixisa halkan ku abaabulanayo ma aysan show meesha waa meel miinaysanba oo kooxa intii la diyaariyay oo hubaysan baba meesha lagu diyaariyay ciidankii
waxaan ku soo bilowday madaafiic iyo hub tig 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 iyo qoryahooda u tiirsan yihiin oo wax dhibaataba aan meesha aan ka filayninba waa meesha hadda ugu shacabkooda ay la noolaayeen ee nabadgelyada u tageen ee la rabay waxa weeye ay lahaayeen shacabkan xoogaa is haystaan nabadaysiina neg 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 suu iyo baalkii unbaa dabada iyo doomishaan unbaa afka loo qabtay 39 askari iyo macaltaliyahoodii baa halkii lagu dilay hadda macaltaliyahoodii sarkaalkii saraakiishii wadatay baa halkaa lagu dilay hogaankii nabadgelyadana waa ka soo horeeyey iyo weliba saraakiil la socotay beeshii markay sidaas ay dhacday waa kii ciidanka new booliska ay galeen oo la yidhi bal u kaadiyo dadka deegaanka iyo beelaha inoo dambeeyaan iyo nabadayntoode dad shacaba waxaan meehee hubkan shacab ma haysanine gantaaladan iyo balaadan la dhacay argagixisadan hortaan soo afjarnay lagu soo afjaray 200 iyagana laga dilay kooxdii duulaanka soo qaatay ciidankii marka sidaa dulmiga loo dilay ee saraakiisha lahayd ilaahay jannatul firdaws ha geeyee wiilalaan dhibaato wadin oo waxay ahaayeen dhulkooda iyo dadkooda u shaqeynayo ilaalinayo weliba duruufo adag ku ilaalinaya hayeene ayaa baroordiiq loogu samaynayaa madaxtooyada deegaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga baroordiiqdan marka waa un duco waa loo duceynayaa mujaahidiintaas halka ku shahiiday ee ku geeriyooday sida xaqdarrada ay gacanta ka xaqdaran ay dishay ayaa loogu duceynayaa waa duco xukuumaddu marka ducadaas bay soo abaabulaysa abaabulkeedii bay wadaa odayaasha dhaqanka culimo u diinka bulshada qaybaheeda kala duwan baa la rabaa in xaflad weyn loogu dhigo oo aas qaran iyo duco ah in loogu dhigaa la rabaa buurta looga arrimiyo dowladda deegaanka Soomaalida arrintan marka oo dhiirigelin u noqonaysa laamaha amniga ee duruufaha adag ugu shaqeynaya dalkooda iyo dadkooda kuwii dhintayna loogu duceynayo eheladii ay ka tageen marxuumiintaasna lagu samrinayo ayay Somaliland u soo wada fadhiisteen marka 200 ee shacabkii caruurteen la laayay saa looma dhowrahayo waxa baroordiiq loo sameynaya askartii waxa way gaalada ahayd ee shacabka xasuuqday askartii war shacab la xasuuqayna ma jire dadkan ay leeyihiin iyagu shacab baa laga xasuuqay ee hubaysan ee argagixisada meesha lagu soo abaabulay ka hor baa la laayay kuwan baroordiiqda loo sameynayo dagaalkiina kuma aysan dhibaninba waa kuwii iyagoo xeryahooda jooga ay argagixisadu weerartee dhibaataysay weeya arba waxay ka dhigayaan wax dagaal ku dhintay bay ka dhigayaan waa uga wada waa ciidankii ay soo gaadeen ee technical ay u adeegsadeen ee kooxdan khawaarijta meeshan laga saaray dawacali laga saaray ay dhibaataysay weeye waxaan leeyahay markaa adeer hadday idinka gaalayni yihiin anagay mujaahidiin noo yihiin hadday idinka waxa weeye ay wax liitayna leeyihiin anagay wax sare noo yihiin annaga amnigooda ku joogna annaga deegaankaanaday waxa weeye ilaaliya annaga dhulkooda u dhasheen xukuumadduna waa xukuumadoodii dalka loogu dhigayo baroordiiqdana waa dalkoodii iyo deegaankoodii ma aha Somaliland iyo meesha argagixisada laga soo abaabule idinkana argagixisadiina iyo kuwii inaga dhintay Hargeysa ugu dhigta maxaa iska ka galay kuwii Hargeysa burcad ka soo dhigtay berbera ee leedii waa la laayay idinkuna halka ugu dhigta maxaa iska ka galay qaylada maxay tahay oo intii calaadkan aad furateen afka furateen reerka marka waarta waa arrin aan la yaabay weeye baroordiiq ay afka furteen xagaas loogu dhigi shacabka ma loo dhigo shacab maxaa naga galay soo kuwa hubaysan ee ciidanka laayama soo kuwa soo gudbay Soomaaliland laga soo abaabulay ma soo kuwa ciidankii ilaalinayay gab ka siiyay ma maxay ahaayeen maxay ujeedkoodu muxuu ahaa qorshooda markay ciidankii laabihii amniga ay ku jiifeen ee shacabka ilaalinayay ay leynayeen hadday shacab ahaayeen maxay ahayd sababta u laayeen taas marka horta taasaan ka leeyahay nimanka qaylqayliyay idoor waxaan leeyahay adeer annaga baroordiiqdaanada iyo waxaanada waan dhiganaynaa xukuumadduna way ku mahadsan tahay dhinaca jarna aad iyo aad buu ugu mahadsan yahay baroordiiqda iyo qabanqaabadeeda waana arrintaasna waan soo dhaweynayaa anigu aad baan ugu farxay markii la ciidanka loo dhigaya nimanka mujaahidiintana ilaahay waxaan uga baryaynaa jannatul firdaws gacan ka xadaran baa dishay janno way gelayaane jannatul firdaws ilaahay inuu geeyo ayaan ilaahay uga rajaynaynaa sababtoo dulmi ma wadin amniga dad deegaanka u ilaalinay xereys kaga jireeno ayuu qoryahooda u tirsan yihiin baba lagu meeshooda lagu laayay taasi waa baroordiiqda dhinaca kale Ethiopia dad Qurayn bay ku jirtaa mashaqo ayaa gacmaha iyo lugahaba u galay mashaqo ayay ku jirtaa mashaqaha aan maqli jirtay waa mid Ethiopia maanta haysata dhul gariir cabirkiisa lagu sheegay 5.8 5.8 nooca ugu sareeya ayaa horta Ethiopia ku dhuftay saddex qaybood buu iskugu jiraa dhul gariirkan
qaar horta buurihii baa dhaqaaqay buurihii dheerdheeraa ee oromada iyo axmaarada iyo bishaanguul gumiskiyo ayba fuuli la-aayeen dhulkay ku darmadeen horta way dhaqaaqeen buuro dhan baa intay dhaqaaqeen bay dhul siman noqdeen dhulkii horta midaas waa midaasoo waa buurihii dhaqaaqay waxaa kasii horreysay buurahan dhaqaaqay magaalooyin dhan oo rogmaday magaalooyin haddaad maqli jirta suurgadoon baa rogmaday etoobiya ku rogmaday hadda meelo ka mid a magaalooyin dhan baa xabaalmay oo ciiddu ay ku rogmatay oo dadkii yaa allahu intoodii badnay ay uga baxeen taasoo horta waa taasoo waa buuraha dhaqaaqay miduna waa volcanic waxa la yidhaahdo oo dhulka unbaa meel un fad 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 sida muuqaalka hordhiciisa ha daawateen fad 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 oo fad 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 bahla biyaa oo dhibil dabaa unbaaba ka soo boodaya labada arrimoodba marka horta saameyn badan bay ku yeelatay bulshadii deganeed ilaa 300 oo kilomitir ka badan oo Ethiopia dhexdeeda markii la isku dardaro ayaa volcanigaas iyo buurahaas dhaqaaqay ay Ethiopia horta ka dilaaceen midda saddexaadna meelaha qaar biyo caadi ah yaa fay ka soo dhay meel lagu ganacsanayo ma aragtay ganacsiga bartankiisuun ay ilka boodaysaa fay hawadayba qabsanaysaaba waa biyo laakiin iska caadi ah oo weliba nadiif ah weliba nadiifa arrimahaas horta Ethiopia haysato mashaqado ku dhacday deegaanada ay ka dhacday volcanigan iyo dhulgariirkan iyo weliba dilaac dhuleedo dhulku intuu dilaac uu kala baray weliba noqonayo dhul untag oo iska noqonayo waa deegaanka canfarta deegaanka axmaarada deegaanka oromada deegaanka bishaanguul gumus nimanka la yidhaahdo afarta deegaanba volkaanadu iyo sidoo kaleeto dhulgariirkaba waa uu ka dhacay deegaanka soomaalida naftirkeeda degmo ku taala gobolka city ee dowladda deegaanka soomaalida oo la yidhaahdo afdem degmadaas wuxuu oromay dhinaca bogta isxigaan iyo canfar iyo isxigaan oo afkoodaba lama garanaye oo qolada ciisehe degmadaas baa iyadana dhulgariir baa ka dhacay oo laakiin dhibaatana ma geysanin oo wax khasaara lama soo warinin oo dhimasho iyo dhaawac iyo sidoo kaleeto dhul markaasi hanti burburtay toona lama soo warinin laakiin waa la dareemay habeen hore mise habeenkii saddexaad ayaa aad iyo aad degmadaas yaa looga dareemay si kastaba Ethiopia horta mashaqadaas bay ku jirtaa daadgurayntii dadkaas baa lagu jiraa 300 kilomitir oo Ethiopia dhexdeeda weliba gaar ahaan axmaariyo oromo oo la yidhi dad baa laga daadgurayn intee dhayaad u malaynaysaa Soomaalida ay ka badanayaanba Soomaalida kilalka shanaad oo dhan ayayba ka badan karaan dadka halkaas 300 kilomitir degan sababtoo iyaga dhulkooda ninkii dhex maray baa dhex maro garanaye meel banaan male dhulkoodu meel banaan male waa sida mukaambada iyo dhulkan hadda Kenya oo kale sideedoo kale to weeyo aqal buu saaran yahay meel buur walba buurta afarteeda dhanba sidanay lakab isku kor saaran yihiin waa nin iyo beertii iyo hal sac nin iyo beertii iyo laba ida ah nin iyo beertii iyo lax baa ugu xiran hantidooda dhanna waa lax iyo idun waxa weeye waa lax iyo baalki la dhahay kan lo labada weey waxa soo raaca laga yaabaa meelaha yara siman inaad aragto dameer kumana badna xoolaha marka ay dhaqdaan oo dhanba waa inta loo iyo iday dhaqdaan loo iyo iduhuna ma badna ninka ugu badan baa laba sac haysta labada sac baa marka qoobka ugu xidhan beertiina meesha ugu taala marka dhulkoodu sidan uu isku saarsaaran yahay 300 kilomitir waa suurtagal 10 milyan ka badan in laga qaado oo dadoo laga raro hadee dawladda hadda maanta dagaal baa ku furan oo meel walbana ma geli karto oo hadana meelahan hadda ay dhibaatadu inta badan ka dhacday kooxihii baa ka dagaalamaya jabhadihii faano oo deegaanka axmaaradaba ku awood sareysa iyo jabhadii oola oo ayadana deegaanka Oromia ku gacan sareysa labada jabhadood baa la dagaalamaya shacabka meelaha qaarkood waxa leeyahay looma gurman karo oo dawladdu ma gaari karto in hay'ado caalami ah oo ururadaas waxa way jabhadaha dagaalamaya dhex gali kara loo dira mooyeen dhibaatadaas iyo mashaqadaas baa horta Ethiopia yaa ka dhacday oo dhulgariira xageed ku harta buuro dhan baa intay dareeraan bay sida biyihii noqonayaan oo dhulkay ku darsanay arrin caadi iska noqonaya waa buur dhan baa dhaqaaqaysa dhul beel cidla socodaya webi noqonaya bad xabanu malaynba Ethiopia badii Soomaaliya ay ka raadinaysa inay dhulkeeda dhexdiisa uga dilaaci doontaan u malay bad dhul baa bad iska noqonaya bad meel bad bay iska noqon mashaqadaas horta Ethiopia ka dhacday waa dhulgariir khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca iyo sidoo kale midda hantiyeetoona
weli lama diiwaangelin dhinaca dowladdu waxay ku howlan tahay sidii ay dadka u badbaadin lahayd loo daadgurayn lahaa shacabku intiisa badan iyagaaba sii cararaya oo markii dhibaatadii ay meesha ka dhacdo la arko wixii soo socda shacabku ayagaaba sii cararaya marka dowladdu weli diiwaangelin ma aysan samaynin khasaaraha nafeed iyo midda maaltoona waynu eegi doonaa wixii ka soo kordho muuqaaladeena dambe ayaan idinkula wadaagi doonaa